السلام عليكم كل وعنا وناسين ميل كستو عالم كتوبتان موضوع كورك كده لنا استعمالك ملح معصبة حداف هذا قرمد مدوبة قبل سنة عافماتك يا مقعد لا سوق أبيو دبل شو وحشي سائل لقى قاضو حنوض عنك على قاضين أما الله يقانو نن كوميونيكابل ديسيس وأنا كم بدي حنوض كل دعاء وضناها يسلك الحديث ديكا كان يفس كل ديسيس سوق الله حكم بدي حنوض كل دعاء كليات وحكى هيدا قرمد مدوبي دبل شو عشان إني كين كرت استعمال حدافك ملح معصبة هذا سكلي كوسر ليا براشك waxyaabaha kale hay'addu sheegtay waxa kamid ah isticmaalka waxa loo yaqaano cayilka ama buurnida xadaafka waxa kale oo hay'adda caafimaadka adduunka u qabilsan ee WHO ay hoosta ka xariiqtay in isticmaalka badan ee milixda ama cusbadu ay keeni karto xanuunada ka mid yihiin kasar ku dhaca caloosha iyo sidoo kale xanuunka daciifiya lafaha ee loo yaqaano osteoporosis sidoo kale hay'addu waxay sheegtay in sanadka ay guriyoodan in ka badan 9 ruux isticmaalka faraha badan ee milixda waxay soo jeedinaysaa in la xadido ama la yareeyo isticmaalka cusbada ama milixda ugu dambeyntiina siday sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka u qabilsan ee WHO dadka waxaa looga baahan yahay inay isticmaalaan maalintii in ka yar 2,000 miligram oo milix ama cusba ah balse dadka ayaa beddelkeeda waxay isticmaalaan in ka badan oo ah halbeejbaar 4,310 miligram tanina waxay keentaa xanuunada laga qaado isticmaalka xad dhaafka ah ee milixda ama cusbada aynu soo sheegnay tan kula dambe nabadgelyo